waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a-da dhegaystayaal bilowgii 1990-nadii qaranjabkii soomaalida ku dhacay wixii ku wacnaa weli la islama meel dhigin sababo dhowra dartoodna ma filaayo faca maanta noole si aan hayikac lahayn inay isula meel dhigi karaan xukuumadihii 1960kii talada dalka gumaystayaashii reer yurub kala wareegay mar baa qaranjabkaas wax laga saaraa mar kale waxaa loo saarayaa mucaaradkii hubaysnaa ee inta qaabtooleedka isu abaabulay dowladdii jirtay sidaas ku dumiyey waxaase loo badan yahay ayna u eg tahay in la isku raacsan yahay in qabyaaladdu ay ahayd sababaha tii ugu darayd ee ay eersatay ilaa haddana ay la hinqalla'dahay yeelkeede 70kii gu ee aynu soo dhaafnay marnaba maansayahanada soomaalidu kama aamusin iftiiminta dhibaatada ay qabyaaladdu bulshadooda ku hayso marnaba hagar kama ay gelin inay ku dheeraystaan maanse gabayo iyo heesaba leh oo ay ummadda ku dareensiinayaan in dowladnimo iyo qabyaaladii aysan meel wada geli karin oo labada in midkood la doorta ha joogtee aysan suuragal ahayn in lagu wada dhaqmo siday ila tahayna weli waxaa nool waayeel badan oo xusuusan hal abuuradii la dagaalanka qabyaaladda ku caanbaxay ee allah u naxariistay ay ka midka ahaayeen cali xuseen tima cadde cali cilmi afyare calays ciise iyo 1967kii cali sugulihii dowlad iyo dadweyneba ku baraarujiyey dhagax iyo dab layskuma dhuftee kala dhowraay wax ka dhigan gobonnimada qabiil dhexgalee kala dhowraay kala dheer labaduye kala dhowraay inkastoo xilli walba ay jiraan hal abuuro ka xoroobi waaya soo kicinta iyo guwaabada toltolka ku dhisan haddana iyaga bulshadu ma xusto hadday xustana wanaag kuma xustee waxay u sara joogsataa codka markay maqlaan kuwa danteeda farta ugu fiiqa ee in yar ka hor aan qaarkood soo magacaabay waa tahay axmed colaad qorane oo loo yaqaan abwaan qorane waa maansayahan dhibaatooyinka soomaalida haysta dhab uga murugooda dhowr sano ka hor beryihii habsiyaasadeedka federaalnimada iyo soomaalida la isku sidkaayey ayuu ka mid ahaa dadkii uu habkaas dareenku ka galay dadkii u arkay inuu yahay uun qabyaaladii oo magac cusub loo bixinayo iyo kala qoqob hor leh oo bulshada lagu kala fogaynayo markaas buu tiriyey gabay uu ku qeexayo goobta foosha xun ee ummadda uu ku abtirsado ay qabyaaladdu dhigtay dulucda ka horse wuxuu gabayga ku bilaabayaa arar haddiiba laga garan karo ujeeddada guud ee uu xambaarsan yahay arar muujinaysa hugunka laabtiisa iyo caloolyowga xilliyada qaar ay naftiisu la xasili weydo waa gabay dheeroo qaybo ka mida inaan mariyo mooye aanan idilkiis idiin soo gudbin karin wakhtiga aan haysto oo kooban awgeed wuxuu ku bilaabay waayadanba waan salalsanaa saaxi ma ahayne si aan ahayba mooye qalbigu way sanqarayaaye saqda dhexe habeenkii ninkaas soogan baan ahaye siduu cadowgu noo kala sidkaye saxalku noo fuulay caqligii wax suuradin lahaa waa la saanyaday 9 dowladood oo yaryari sabi ma deeqaane waa sida shisheeyuhu rabiyo saalax waatuuye sacabkayga oo maran markaan sare u taagayo soomaali weyn oo midax yaan saadiyaa weli ha yeeshee suntii lama daweyn saancadka lahaydee suxullada sidaan uga jabnay ee sabarku noo ciiray sahwi iyo halmaanba igu dhaca saacadaha qaar qayb uu kaga hadlaayo milgada ay midnimadu leedahay iyo haddii muruqa iyo maanka la isu geeyo liminta lagu gaari karo taasna wuxuu ku tusaalaynayaa cayayaanka taagta daran ee dhurdaha aynu ku magacownaa siduu surta macaanka badan wadajirka ugu samaysto iyo dhinaca kale hoogga iyo ba'a khilaafku leeyahay soomaalidana uu baday wuxuu yidhi surtaad aragtay ee suuban eed sixinka moodayso si kastaba u eego waa dhurdaha waxa sameeyaaye sabankiiyo wuxuu kaga baxaa sulufta jiilaale lafa soo hanseed iyo cad iyo saani kuma taale
si kalaa raxmaanku u khalqiyo sawrac gooniyahe sinaan iyo ismaqal buu filkii kaga sarreeyaay wax waliba markuu wada socduu sare u guuraay mar haddii khilaaf lagu sallado seegtay marinkiiye silic iyo haraad kama baxaan waa sidaan nahay meelo kale oo gabayga ka mida ayuu ku tilmaamayaa sideedaba waxa ay qabyaaladdu u taagan tahay iyo ba'a ay bulshooyinka ku markato sida colaadaha lagu hoobto iyo gaajada ku mataansan dhinaca kalena wuxuu u arkaa inay tahay hubka si walba dadka isugu midka u ah uu gumaysigu ku kala qaybiyo markaasna uu danihiisa kaga fushado wuxuu kaloo leeyahay qabyaaladda waxaa ku adeegta qof aan kartidiisa wax ku qabsan karin dawdarka iyo tuugga gabaadka iyo gaashaanka ka dhigta wuxuu yidhi sixir iyo qabyaaladi ka daran sariya daacuune mar hadday qalbiga seexato saabka ku cawayso waa cudur caqliga suuliyoo lagu sumoobaay saaraxal wareerkiiyo bulshadan seexan kari weyday siiliga colaadiyo sharkiyo siifadiyo boorka iyadaa saraayaha dhashiyo siica nololeed waa saawasaawiyo col iyo saymo diriireede marna waa sabaan iyo abaar soof mareebta ahe sabi iyo haween kama tagto iyo saancaddaha weyn sagal hooray doogoosidmoo lagu sureeraayo sareerada markay kaa qubtiyo subaga ceegaaga sabool iyo waxay kaa dhigtaa surugla cayreed sisaarada gumaysigu markuu qolo suldaarayo saka laga wareemo iyo markuu dabin u soo haayo suryaduu inoo soo mariyo sababta weeyaan safiih iyo waxay caawisaa saaqid iyo tuuge kolba bahal khiyaano u socda ya saamuhu tuma soomaali waa wixii rogoo seetaduu jarayd iyadoo sibraha qaawisoo saanad iyo xoog leh mar hadday silsiladihii jartoo sagabihii tuurtay wax sanceeya saakaan lahayn oo sokeeye ah mar kale wuxuu axmed colaadina xusuusinayaa dagaaladii qabyaaladda ku dhisnaa dhibaatooyinkii ay soomaalida dhaxal siiyeen iyo nolol ahaan siday ugu baaba'day wuxuu yidhi soonaha hargeysiyo burciyo saaxil iyo awdal sool iyo sanaag iyo halkiiyo sulinka boosaaso galgaduud salkeedii iyo mudug seesha beledweyne sinta jawhar iyo baalcad iyo webiga seeraara sakadii banaadir iyo bay sabada baar dheere seeriga bakool iyo markiyo seedda baladxaawo sudihii kismaayo iyo gedo barasankii ciidda waa meelihii lagu sardabay sarow abraarkiiye sahay lagama helo beerihii saraca weynaay dabadeedna bal inay sida dhaantaan wuxuu ula bayrayaa xagga diinta wuxuu ku cabsigelinayaa aakhiro iyo dembiyadii ay kala galeen ciqaabta uga iman doonta markaas buu leeyahay naftana mawdku laba saayiroo saacadba u qoran markuu malagga nagu soo socdaa ruuxa naga siibo su-aal baa dambaysoo qabrina weyna sugayaaye sakatiga qiyaamaha markuu salala insaanku ma sahlana amuuraha socdaa saad u maqasheene sukaaraa la moodaa markay sirinsirqoobaan suldaan iyo wasiir ma jiro iyo laan saraan ahayee sokeeyiyo halkaa lagama helo tol iyo saaxiiba soconna maayo laaluushkan aad madaxda siisaane kuwa naarta lagu sayrayee lagu saloolayo iyo kuwa sariirihii jannada boqorku siinayo haddaad saafto labadaa saf way kala sarreeyaane ugu dambaysta abwaan qorana wuxuu ku talinayaa intaan eebba xisaabin in soomaalidu ay isxisaabiso inay ka toobad keento foolxumooyinkii ay isku samaysay dabadeedna siday eegga ku sugan tahay si ma ahee ay talo isugu noqoto intay wax aqoonta meel isugu keento soomaaliyay waad ogtihiin waxaad samayseen sabaanadanba waynagu yaraa saadka aakhiro kuwa saalixiintaha intoo talada loo sooco haddii aan wixii hore socdee loo sacyiin hawsha waa layna soo saarayaa saa dambe aan dhowrab waa gabay laba tuduc markii laga reebo habka saddexleyda ku tirsan kaasoo ah mansayahanadii waaweynaa qaarkood hababkii ay u gebi jireen midkood waa gabay dheer hase ahaatee akhris iyo dhegaysiba aan lagu daarayn madaxaygana sababtu waa ujeeddada sare ee uu xambaarsan yahay iyo ereymaansadeedka qirada weyn leh ee gabyaagu uu inoogu soo gudbinayo dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo